Bismillaahi Raxmaani Raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo joogtaan kusoo dhawaada Caalam Media 24 barnaamijkeena waxaan maanta ka hadli doonaa waddan ka mid ah wadamada Yurub oo ciidamadiisa hubaynaya maalmaha ciidda u diyaargarowga ciidda oo farxad loogu diyaargaroobi jiray maxay tahay sababta waddankan uu u hubaynayo ciidamada dhibaatadana ugu diyaargaroobayo barnaamijka aad kaga bogan doontaan ee daawada mar kale Caalam Media 24 haddii aad ku cusubtay YouTube-ka subscribe noo saar haddii hore nala joogteen fiidiyoga noo share garee maalmo ciideed marka la joogo waxaa loo diyaargaroobaa farxad guud ahaan caalamka oo wadamada muslimiinta ay ku nool yihiin ay ugu badan yihiin laakiin waxaa wadamada qaarkood ay u diyaargaroobaan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyin kusoo food leh wadamadooda oo ay filayaan inay maalmaha qaarkood ka dhacaan maalmaha ciidda oo inta badan dhibaatooyin aan laga filin inay dhacaan ayaa waddan ka mid ah wadamada Yurub wuxuu diyaarinayaa ciidamadiisa si uu uga hortago dhibaatooyin uu qiyaasayo inay dhici karaan maalmaha ciidda waddan ka mid ah wadamada qaaradda Yurub oo ciidamadiisa aan looga baran in la hubeeyo ayaa xilligan wuxuu bilaabay ciidamadiisa inuu hubeeyo gaar ahaan maalmaha ciidda sababta keentay in la hubeeyo ciidanka maalmaha ciidda ayaa waxay ku sheegeen in isku soo baxyada lagu dhigayo waddankaasi cabsi badan looga qabo in kooxa rabshado ay ka dhex sameeyaan waddanka Norway ee ku mid ah wadamada Scandinavian-ka laguna tilmaamay inay yihiin wadamada Yurub ugu nabadda badan ayaa bilaabay in ciidamada booliiska hubeeyaan maalmaha ciidan ugu diyaargaroobaan iyagoo hubkooda qaadanaya Norway loogama baran in ciidamadu ay hubkooda qaataan iyo si la mid ah wadamada guud ahaan Scandinavian-ka uma badna ciidamadu ay hub qaataan waxaase Norway xilligan ay sheegaysaa in maalmaha ciidda ciidanka booliiska la diyaarin doono hubkoodana ay qaadan doonaan bayaan ka soo baxay booliiska ayaa BBC-da soo tabisay ayaa lagu sheegay in tallaabadan ay timid kadib markii la arkay hanjabaado ku wajahan dhanka muslimiinta isku soo baxyada maalmaha ciidana cabsi badan laga qabo in dhibaatooyin xoogan la gaarsiiyo soo baxyada waddankaasi Norway oo aan wax dhibaato markii hore ka jirin ayaa la sheegayaa in maalmaha ciidda cabsi badan laga qabo kooxa rabshado sameeya maadaama ay hadda soo baxayaan hanjabaado loo jeedinayo dadka muslimiinta waxaana laga cabsi qabaa arrinta Israa'iil iyo Falastiin dhibaatooyin ka yimaada inay soo gaaraan dadka muslimiinta dadka sidoo kale aan muslimka ahayn ayaa isku soo baxyada looga digay iyadoo booliiska Norway sheegeen in mar kasta oo ciido ama sidoo kale isku soo baxyo ay bilaabanayaan ay u diyaargaroobayaan si rabshadaha ama dhibaatooyinka dhici kara ay kaga hortagayaan sababta hubka ay u qaadanayaan ma ahan inay waddan weerarayaan ama booliisku ay ka hortagi doonaan dadka ciidaya maalmahaasi ciidda laakiin waxay tahay sidii looga hortagi lahaa rabshadaha dadka dhibaatada u geysta dadka muslimiinta iyo dadka aan muslimka ahaynba nacaybka loo qabo muslimiinta ayaa qaybo badan oo Yurub ka mid ah kusii badanayay muddooyinkii dambe iyadoo wadamada qaarkood marar badan laga soo tabiyo in dad badan oo muslimiina lagu dhibaateeyo sidoo kale dadka muslimiinta ayaa dhexdooda laga sameeyaa rabshado iyadoo dad isku soo dhex qariya ay dhibaatooyin geystaan taas oo keenta in bulshada muslimiinta iyo dadka ay la nool yihiinba ay kala aamin baxaan wadamada muslimiinta oo Soomaaliya ka mid tahay maalmaha ciidda waxaa lagu arkaa laba safle sidii ciidan u abaabulan oo ay sameynayaan dhalinyarada ciidda sameynaysa waana mid hubaysan oo ah mid nabadeed oo aan ahayn mid rabshada ka imaanayso rabshada laga cabsi qabo inay ka dhacdo wadamadaasi Yurub qaybo ka mid ah ee dadka muslimiinta loo geysan karo ayaa waxaa laga cabsi qabaa in dadka rabshadaasi sameynaya isku dhex qariyaan dadkaasi dabaaldegaya carruurtooda goobaha ay ku dabaaldegayaanna laga yaabo in dhibaatooyin xoogan ay u geystaan daawadayaal intaas ayana qodobkeennii la xiriiray waddan ka mid ah Yurub oo hubaynaya ciidankiisa maalmaha ciidda aan ku soo koobayna